Assalaamu calaykum. Ramadaan mubaarak. Waxaan ku rajaynayaa inay maalin qurux badan, habeen qurux badan, galab qurux badan, subax qurux badan intaba ay kuu tahay, waqtigay kuu tahayba. Een, Muuqaalkan waa muuqaalkii ugu horreeyay bisha Ramadaan ayaan ku soo baahiyo bartayda TikTok-ga ah. Muuqaalkan sababta aan u soo baahinayna waxay tahay een, muuqaalo badan ayaad daawataa, dad badan ayaad follow garaysay. Muuqaaladaad daawatid ma ogtahay inay caqligaaga ama ku caqli aad tahay muuqaalada aad daawatid? Ma ogtahay sidoo kale sababta carruurta ay u daawadaan cartooniska ama Tom and Jerry haddaan si kale kuugu dhigo? Waa garaadka caqligooda intuu la eg yahay. Caqligooda ama garaadkooda intuu la eg yahay. Marka muuqaaladaad daawatid waxa ay si toos ah u qeexayaan caqligaaga, garaadkaaga intuu la eg yahay ama diid ama yeel. Marka taa laga yimaado cidaad follow garaysid, waxaa laga yaabaa qof walba TikTok kaa soo horbaxa, qof walba inaad iska follow garaysid, qof walba inaad muuqaalkiisa likes ka saartid, qof walba muuqaalkiisa inaad repost dhahdid, qof walba inaad share dhahdid ayaa laga yaabaa muuqaalkiisa. Marka dadka saameyn ayay kugu leeyihiin. Sababtay saameynta kugu leeyihiin waxay tahay haddii aad bal ka waran aad raacdid ereyga follow af Soomaali waa isoo raac. Bal ka waran haddii aad qof aan wanaagsanayn aad daba kaxdid, xaqiiqda waad ku dhumaysaa. Marka muuqaalada maanta TikTok-ga lagu baahinayana waxyaabahaasaa ugu badan, weliba dadka Soomaalida waxyaabaha negative-ka ugu badan, xumaanta, qabyaaladda, aflagaadada, akhlaaq la'aanta iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan ayaa TikTok-ga ku badan. Waxaa laga yaabaa marka hadduu kaa soo horbaxo wadaad oo khudbad jeedinaya inaad iska muujiso, haddii uu kaa soo horbaxo qof ku dhiirigelinaya inaad iska muujiso, haddii uu kaa soo horbaxo qof wax kuu sheegaya xirfad ama skills ama sida dhaqaale loo sameeyo kuu sheegaya inaad iska muujiso, ama waxyaabo jirkaaga caafimaadkiisa, cunooyinka, jimicsiga ku saabsan in qofkaa daqiiqad aad u dulqaadan weysid ama sekano aad iska dhaafisid. Dadkaasna aadan follow garin ayaa laga yaabaa. Marka muuqaalada aad daawanaysid waxaad ku xulataa si degnaana ku xulo, si caqli leh ku xulo. Cidda aad follow garaynaysna si la mid ah sidaas. Waayo qof walba ha iska follow garaynin. Muuqaalkayga hadduu kaa soo horbaxo oo aad daawato, berrito wuu kaa soo horbaxayaa ama daqiiqado kadib wuu kaa soo horbaxayaa. Sababta ma taqaanaa? Algorithm-ka TikTok-ga ayaa waxay u shaqaysaa waxaad daawatid inay kuga soo xusho. Haddii aad daawatid waxyaabaha qosol-qosolka ayay kuu soo xulaysaa. Haddii aad daawatid waxyaabaha cunto karinta, haddii aad daawatid waxyaabaha motivational-ka, haddii aad daawatid culummada, waxyaabaha aad daawatid ayay algorithm kuu soo xulaysaa. Sportska sidoo kale haddii aad daawatid, jirdhiska sidoo kale haddii aad daawatid, algorithm-ka waxay kuu soo xulaysaa marka waxyaabaha ku saabsan jirdhiska iyo sportska. Marka waa inaad sidaa aad u fahantaa. Waxaa laga yaabaa adoo wax niyadda ku haya inaad TikTok ay kaaga soo horbaxaan oo aad is weydiisid sidee ku dhacday. Waa algorithm-ka sidii u shaqayso. Marka waxaan ku leeyahay cidaad follow garayso, muuqaalada daawato si taxaddar leh oo caqli ku dhisan uga fikir. Oo markasta waxaad ku dadaashaa wax ku dhisaya, wax ku booshgaraynaya, wax ku horumarinaya caafimaad ahaan, jir ahaan, maskax ahaan, shakhsiyadaada dhisaya maaragtay raadso oo muuqaalada daawo. Dadkaas ayaa u qalma inaad follow dhahdid. Marka muuqaalka intaas ayaa jeclaystay inaan kula wadaago. Mahan canaan waa inaan kula wadaago xaqiiqada dhabta ah ee qofka naftiisa horumari karta. Waa inoo muuqaalka xiga.